Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Waxaad ku soo dhawaataan sheekadii Dhoofid hal caasha qaybteedii koowaad. Sheekadan ayaa qiso fariin xambaarsan arrimo badan oo cimri qaadashada leh, waana dhacdo xanuun badan oo ka turjumaysa nolosha beenleyda ah. Waa qiso soo tawinaysa fariin murugo leh in adduunya la iska dooradin, in la yasin dadka liita, ileen alla qofna kulama ballan daciifna iyo horumar intaas iyo in ka badan. Waxaad ka dhaxli doontaa sheekadan qaybteedii koowaad waxay ku bilaabantaa sida tan. Liibaan wuxuu ku barbaaray nolol rafaad leh oo iyo sidii dad ku dhisan, nolol murugo joogto ah leh, nolol raaxada dunida ka qasan, iyo nolol saluug leh. Aabihii Cali Aadan oo waardiye garaash ahaa, tuugo ayaa dishay. Hooyadiisa nolol kumuusan arkin, oo foosha ayay ku sakaraaday kadib markii ay umusho geeriyootay. Waxaana soo korisay ayeeydiis aabihii dhashay, iyadana waayeelnimo ayay ka daba timid oo faraheeda ayuu ka baxay. Markii aabihii la dilay, ayeeydiisina gabowday, waxaa la wareegay adeerkiis oo shaqadiisu ahayd qabri qode, balse marnaba ma noqon mid nolol raaxo leh soo arkay tan iyo intuu ka gaaray 25 jirkiisii. Liibaan Cali Aadan markii uu qaan-gaaray ayaa adeerkiis iskuul geeyay, wuxuuna Liibaan ku fekeray si nolosha cadaadin uga baxo inuu waxbarashada ku dadaalo si horumar u gaaro nolosha adduunyo, shaqo wanaagsan oo intifaac lehna u helo. Markuu dugsiga dhexe dhameeyay, ayuu Liibaan ku fakeray inuu galo dugsiga Xalane, halkaas oo ardayda dhammaysta dugsiyada dhexe loo siin jiray tababar macallinimada darajada loo yaqaano macallinimada BBda. Waxayna la ahaan waysay, wuxuu is yidhi macallinimada wax anfac ma lahan oo mushaar yar yahay. Sidoo kale inuu kulliyadda caafimaad galo oo kalkaaliye noqdo ayuu ku taminayay, haddana wuu ka talo baxo. Ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday inuu dugsiga sare galo, kadibna haddii uu Alle u saamaxo uu jaamacad u sii gudbo si uu markaas shaqo wanaagsan oo tayo sare leh u helo, mustaqbalkiisa dambena anfacdo. Liibaan dugsiga sare ee 15 May oo ka mid ah dugsiyada Muqdisho kuwooda ugu waaweyn oo magac leh ayaa lagu qoray. Siduu caadada u lahaana waxbarashada ayuu dardar hor leh geliyay si uu sanad dib dhac ugu iman. Laakiin markii dugsiga sare uu gaaray fasalka labaad, Liibaan mushkulad iyo badweyn uusan filayn ayaa ku soo butaacday. Si uu iskaga meerayna wuu garan waayay, taasoo ahayd gabar ay isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Ladan oo jaamac jacayl u qaaday. Ladan, ragga muunada leh oo gayaankeed ayaa Liibaan oo dif ka muuqda ka doorbiday, iyada ma doorane jacaylka ayaa u xulay oo ragga kale oo la eeniga ka indhasaabay oo Liibaan oo u farmuuqday, isagana ma uusan filaynin oo filin waa la noqday iyo jees inay ku ciyaareyso. Ladan oo ayadana ka soo jeeda qoys lalaantu haraysay oo aan ka qasnayn, waxay danaysay sida hamigeeda ku hanan lahayd kuna soo jeedin lahayd Liibaan. Qacdii u horeysay dantaansiga caashiqa waxay ku bilowday inay ka codsato buugaagtiisa waxbarasho iyo inuu casharro dib ugu celiyo, maadaama uu ka mid ahaa ardayda ugu firfircoon iskuulka. Isagana daacad ayuu ka moodayay, hawrsan ayaga oo aqbalay. Qorshaheedu ma ahayn buugag iyo casharro loo naqtimiyo, bilow daandaansi shukaansi ayuu qorshaheedu ahaa. Isaga ma uusan fahmin, markay buug weydiisto wuu siiyaa, iyada markay buug ka qaadato waxoogaa lacag intay u soo dhexgelisay ay dib ugu soo celisaa. La yaab waxay ku noqotay Liibaan, lacagta ay mar walba Ladan buugaagta u soo dhexgelinayso waxay is tusay inay qorshe shirqool tahay. Lacagta markay go'aansatana inay dib ugu celiyo uusan u isticmaalin baahi kasta oo uu qabo. Marka ay arrimaha lacagta wax ka weydiisana uu farqaha uga shubo, isaga ma uusan su'aalin sababta ay Ladan lacagta buugaagtiisa u soo dhexgelinayso. Inkastoo Ladan wiilal kale oo maalqabeen oo iyada la eeni ah ay dhufays caashiq ugu jireen, haddana ma aysan u soo jeedin kuwaas. Wuxuu kaliya u muuqday wuxuu ahaa Liibaan oo jacayl xad dhaaf u haysay, waxayna dadaal dheeri u gashay sidii jacaylkiisa u jabi keeni lahayd oo ku hamin lahayd. Ladan waxay la tashi jacayl la samaysay gabar ay saaxiib nafqaybsi ahaayeen, in isku fasalna wadaageen. Gabadhaas oo lagu magacaabi jiray Nasro Sheekh Yunis. Laakiin Nasro markii saaxiibteed u sheegtay inay jeceshahay Liibaan, welibana ay soo loodin la'dahay, naxdin la suuxi gaartay oo filin waa la noqotay. Ma adigoo Ladan jaamac ah oo reer barwaaqsan ka soo jeeda ayay Liibaan aabihii qabri qodaha jeclaatay. Waa la hoogay, hooy isduub oo laftiisa qabriga ii qodeh, isagaa qabri qoda ah. Meeshii ay talo jacayl ka sugaysay ay ku qanacdo
saaxiibadeed ay ku kalsooneed hadallo aan u qalmin ayay uga jawaab uga dhigtay. Markaa intay ku xanaaqday fadhiga kaga sara kacday oo xiriirkii saaxiibtinimo isla daqiiqada goosatay, sidaasna ku kala haajireen. Waxayna labadan is tustay iyadoo aan cidna la tashan inay liibaan jacaylka ku mintido. Haddaba waxay kala kulantaho waxaad ku dhegeysan doontaa qaybteeni labaad. Halkaad kala socotaana waa Kablo Tube. Fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar si aad ula socotay qeybaha kale. Intaas iyo in ka badan waxaad kala socotaan taas iyo nabadgelyo. Kulantin dambe oo xiiso leh saaxiibayaal. Fadlan subscribe-ka saar, gambaleelka furo, ha ka iloobin si aad sheekooyinka oo dhaxalgalka ah ula socoto.